بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون runtii masiibo weyn oo qaran ah dhacday waa ogtihiin oo soobatu ayaa shala dhacday intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacmantana Allah noo caafiyo waxaan xalay ilaa shala galabtii ku howlanaynay sidii dhaawacii loo geyn lahaa meelaha caafimaadka goobaha caafimaadka sidii dhismayaashii burburay looga soo saari lahaa dadkii ku dhaawacmay ama ku jiray iyo kuwii ku dhintay oo ku nafwaayay Ilaahay u naxariisto runtii ilaa xala saqdi dhaxo madaxweynaha jamhuuriyadda oo tagay goobtii oo annaguna aan la soconay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in uu Ilaahay hawsha noo fududeeyo saa ogtihiin hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed waxay uun arrimahan ay xoog u saaraysaa inay dadka dib ku gaaraan ay raadiso dadkii ka maqnaa ama dada ku maqan dhaawacyadii waxaan sameynaa call centers oo runtii laga soo wacayo nambaro aan ugu talagalnay inay hay'adda lagala soo xiriiro nambaradaas oo aad ka arki doontaan shaashada waxaan rabnaa in la soo xiriiro dadka teamkan gadaashiida fadhiyo waa teamkii ka shaqeynaya volunteerka ahaa waxaa kaloo diyaarinay dhiig oo runtii looga baahan yahay isbitaalada team volunteer ha joogo waxaan rabnaa inuu la soo biiro arrinta dhiigu aad uu noogu yaryahay qofkii dhiig hayso oo dhiig shubaysa aan ula soo biiro waxaan rabnaa in nala kaalmeeyo oo cid alaale ciddii arrintan ugu kaalmay karto ay ugu kaalmayso runtii waxaan rabnaa culimadii Soomaaliyeed inay arrinta u soo baxaan waxaan rabnaa ganacsatada inay u soo baxdo dhibku ma yaro runtii wuxuu dhamaa karaa wax saasa kama yaro soobawan wax saasa kama yaro laakiin hadda waxaan ku jirnaa xog ururintii aan ku jirnaa oo waxaan rabnaa inaan xog rasmi ah ka ururino arrintaasina waxay keenaysaa inaan dadku ay call centers ka soo wacaan marka waxaan rabnaa nambarkaas la soo waco hana noola yimaado waxaan kalantoon rabnaa dawladaha walaalaha oo na kaalmay jiray runtii waxaan u wacnay oo aan email iyo telefoon ku wacnay dawladihii runtii arrintan naga kaalmay jiray sida madaxweynuhu uu sheegay dhaqaatiir inaan helnaa noo muhiima oo aan dhaqaatiir iyo qalab helno marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay isku tashtaan ilaahayna dhibkan hanaga dul qaado runtii cadawgaanu ummadda Soomaaliyeed waa halakeeyay marka dhinac hal loogu wada jeesto ummad shaqaysato dalkeeda wuxuu qabsan kartaa inaan naqano waxay ku xiran tahay inaan cadawga iska dul qaadno aad u mahadsantihiin